بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي أستاذ سيد علي مادة Medical Terminology 2 كلاسكنا و College of Health Science 2 لكجر كسيديداد لكجر كي هوري لكجر دي هوري لابد لكجر هوري وحنا أوصو هذلني جبتر كتواناد أو نيرفو سيستم أها قيبتنا وقيبتي سيدحاد قدام بيسي لكجر كأدا يوديرا مهم أيانو أركاي إنان سيدح قيب كديغو maadaama uu muhiim yahay marka qaybtan waxaan uga hadli doonaa xanuunada inta badan ku dhaco nervous system qaarkood way tiro badan yihiin dhammaan ma ku soo koobi karno slide waxaan ka soo qaadanaa qaybaha ugu muhiimsan oo caanka ah marka pathology of the nervous system marka laga hadlayo pathology waa xanuunada ku dhici karo ama xanuunada ku dhaco waxaa ka mid ah marka cephalalgia oo known as loo yaqaano headache madax xanuun cephal waa head algia waa xanuun sooman pain is a pain waa xanuun ku dhacayo in the head madaxa cephal means head waxaa loola jeedaa madax and algia means waxaa loola jeedaa pain xanuun migraine headache madax xanuunada way kala duwan yihiin migraine headache waa madax xanuun nooc kale oo qofka bini aadamka ku dhici karo waa nooc kale bini aadamka ku dhici karo xanuunada maskaxda kamid ah which may be preceded by a warning aura macnaha waxay keeni kartaa ama wuxuu ku imaan karaa dabeecad kala duwan oo ay kamid tahay characterized by throbbing pain xanuun on one side xanuun ku taagan hal dhinac of the head oo madaxa kamid ah yani qayb ama dhinaca midig ama dhinaca bidix oo kale migraine headaches madax xanuunada migraine-ka loo yaqaano primarily affect marka hore wuxuu saameeyaa ama ku dhacaa haweenka and sometimes mararka qaarkoodna accompanied by waxaa daba soconayo nausea lalabo vomiting matag and sensitivity to light iyo qofka iftiinka inuu aad u dhibo or sound ama codka dhawaaqa inuu aad u dhibsado qofka xanuunka hayo darteed sidoo kale waxyaabaha ku dhaco waxaa kamid ah hydrocephalus ayaa kamid ah madaxa in biyo uu galo oo kale qofka madaxiisa ama maskaxda inuu fariisto oo kale is a condition waa xaalad in which excess cerebrospinal fluid biyo badan oo dheeraad ah oo CSF loo yaqaano biyaha maskaxda ku jiro accumulates uu isku aruursanayo in the ventricles of the brain godadka ama qolalka ku jiro maskaxda godadkeeda hydro means waxaa loola jeedaa water cephalna waxaa loola jeedaa madax head asna waa singular noun ending waa magacyada singularka sheegayo oo gadaal xarfaha looga dhajiyo this condition xaaladda noocan ah can occur waxay dhici kartaa at birth marka ilmaha ay dhalanayaan or develop ama waxay ilmaha kasoo ifbixi karaan later kadib markay dhashaan on in life inta uu nool yahay from obstruction taas oo laga yaabo inay xirmato ama inay xiranto related to the meninges xuubabka maskaxda brain sidoo kale maskaxda tumors burooyin inay keenaan or other causes ama waxyaabo kale inay sababaan sidoo kale waxaa kamid ah meningioma ayaa kamid ah meningioma is a common waa mid isagana caan ah oo jiri karo inta badan adduunka lagu arko is low growing koriimada inay yaraanayso and usually benign macnaha oma markaa aragto waxa waaye buro inta badan buradaas oo koriimadeeda ay yar tahay had iyo jeerna waxay ku bilaabanaysaa tumor buro biyood ama buro yar oo aan faafaynin of the meninges oo kasoo baxayso meningeska xuubabka maskaxda meninges marka laga hadlayo meningi waa xuubka maskaxda meninges waxaa loola jeedaa meninges waa xuubabka maskaxda oman waxaa loola jeedaa tumor waa buro ayaa loola jeedaa meningitis ayaa kamid ah oo isagana xanuunada caanka infectionska caanka ah oo ku dhaco maskaxda meningitis waa inflammation of the brain also referred as sidoo kale waxaa loo yaqaanaa infectious meningitis magacaasna waa loo yaqaanaa waxaa lagu qeexaa marka is an inflammation of the meninges waa caabuq ku dhaco maskaxda of the brain maskaxda ayuu ku dhacaa an spinal cord iyo xangulaha meningi waxaa laga wadaa xuubabka maskaxda itisna waa inflammation xaaladda noocaana marka
which can be caused oo uu sababi karo ama ay sababi karto bacterial or viral infection ama infection virus uu keeno ama infection bacteria ay keento ay sababi karto elsewhere in the body sida meelaha kale ee jirka oo kale is characterized by waxaana astaan u ah intense headache madax xanuun aad u daran and flu-like symptoms iyo calaamado cudurka flu loo yaqaano oo kale bacterial meningitis caabuqa oo bacteriada ay sababto which is less common isaga ma ahan mid caan ah is sometimes fatal laakiin haddii ay dhacdo mararka qaarkood wuxuu keeni karaa dhimasho qofka uu ku sababi karaa okay and disorders of the brain ciladaha ku imaan kara maskaxda waxaa ka mid ah dementia ayaa ka mid ah xusuusta inay qofka xusuustiisa inay dhunto ayaa ka mid ah is a slowly progressive decline waa qofka si tartiib ah hoos inay ugu dhacdo in mental ability awoodda maskaxeed uu leeyahay oo ay ka mid tahay xusuusta fikirka iyo weliba xukminta that is often accompanied by taas oo markaas ay daba soconayso haddii intaas ay yaraadaan personality changes qofka shakhsiyadiisa inay wax iska bedelaan senile dementia is a dementia of the aged macnaa senile dementia waxaa loo yaqaanaa waa xusuus li'ida ama xusuus yarida oo dadka da'da ah ayaa waxaa loo yaqaanaa senile ama dadka waaweyn senile dementia laakiin kan waa cudur waaye oo qofka ku imaanaya oo yar iyo weyn ku dhici karo vascular sidoo kale vascular dementia waa xanuun ku imaan karo dementia oo ku imaan karo keeni kara xididada laga yaabo inay xirmaan ama ay istaagaan is a form of dementia waa nooc ka mid ah xusuus li'ida caused by oo ay sababayso stroke dhiig inuu furmo oo ku furmo maskaxda amaba other restriction inuu ka xirmo of the flow of blood dhiigga qulqulkiisa to the brain oo maskaxda ku dhacaya although inkastoo Alzheimer's disease xanuunka Alzheimer loo yaqaano isagana is the primary cause uu yahay waxyaabaha ugu horeeyo isagana xusuusta qofka oo sababayo xusuustiisa inay yaraato vascular dementia oo midka xididada inay xirmaan ah accounts waxaana lagu tiriyaa for about inuu gaarayo 10% ilaa iyo 20% all cases dhammaan caseska la arkay oo dhan waxaa ka mid ah encephalitis ayaa ka mid ah which is kaasoo ah inflammation of the brain caabuqa ku dhaco maskaxda can be caused waxaana sababi karo viral infection caabuq uu sababay virus as sida rabiada oo kale marka qofka ay uu qaniino oo viruskaas qabo waxaa ku dhacaya xanuunkaas loo yaqaano encephalitis encephal means waxaa loola jeedaa brain itisna waxaa laga wadaa inflammation marka compare loo barbar dhigo with meningitis waxaa marka loo barbar dhigaa isaga meningitis Parkinson disease oo BD loo soo gaabiyo waa xanuunada loo yaqaan laleemada ama jarayska loo yaqaano qofka inuu jareeyo inta badan hal gacan ay ka bilaabataa chronic waa cudur waqti dheer qaadanayo raagayo waa cudurada raago ama cudurada daaho waqtiga dheer qaato degenerative central nervous system disorder waxaa cilado badan ayaa imaanayaan oo xagga maskaxda ah characterized by waxaana astaan u ah fine muscle tremors qofka murqihiisa inay si tartiib ah ay u jareeyaan sidoo kale rigidity macnaha rigid inay adkaato and slow or shaving gait qofka in macnaha uu jareeyo gait describes waxaa lagu qeexaa manner of walking macnaha socodka qofka socodkiisa xitaa inuu manage gareyn waayo isla markaasna jarays oo kale uu dareemo this slow or shaving qofka macnaha slowga socodkiisa inuu yaraado is caused by waxaa sababayo gradual progressive loss of control qofka si tartiib ah inuu u waayo xakameyntiisa oo jirkiisa uu ku xakameynayay over movements oo dhaqdhaqaaqa jirka isaga iska dhaqdhaqaaqayo isagoo aan qofka maamulaynin due waxaana sabab u ah inadequate levels heerar aan ku filnayn of neurotransmitters ee dareenwadayaasha ah of dopamine in the brain ee maskaxda ku jira dareenwadayaasha oo dareenka qaadayaan coma ayaa ka mid ah coma waa naqaanaa qofka inuu meeri beelo waaye
is a profound deep state waa xaalad qoto dheer of unconsciousness oo qofka uu miirbeelayo marked by waxaana astaan u ah absence maqnaanshaha of spontaneous eye movement dhaqdhaqaaqa indhaha degdega ah qofka uu sameynayay haddii inta dhaqaaq uu ka dareemo isla markiiba qofka uu fiirinayaa laakiin qofka coma ku jiro sidaas ma ahan isaga no response jawaab ma lahan haddana jawaab ma bixinayo to painful stimuli haddii xanuun uu dareemayo xitaa dareen jawaab kama bixinayo and lack of speech sidoo kale hadal ma lahan the term comatose ereyga loo yaqaano comatose waxaa loola jeedaa qofka who is in a coma qofka ku jiro komada ku jiro oo maqan miirka ka maqan yahay comatose loo yaqaanaa sidoo kale stroke waa dhiigga inuu furmo waaye sidoo kale is properly known as waxaa kaloo loo yaqaanaa cerebrovascular accident oo loo soo gaabiyo CVA this condition xaaladda noocan ah is damage waa dhaawac to the brain oo soo gaaraya maskaxda that occurs dhaawacaasna wuxuu dhacayaa when the blood flow marka qulqulka dhiiga to the brain oo maskaxda aadayay is disturbed markii la qaso ama cilad ay ku timaado sababtu maxay tahay blood vessel xididka oo dhiiga qaadayay is either ayaa midkood naqanayo blocked inuu xirmo or has ruptured ama inuu dilaaco oo dhiiga meel beer dara inuu aado strokes are currently the third leading cause of death stroke marka laga hadlayo waa waxa saddexaad ama shayga saddexaad oo sababaya qofka inuu u dhinto primarily marka loo fiiriyo inuu yahay waxyaabaha ugu horeeya oo sababaya long term disability curyaannimo ama naafanimo oo waqti dheer qaadanayso qofka inuu ku sababo insomnia ayaa ka mid ah insomnia waxaa loola jeedaa qofka inay ku dhacdo hurdo la'aan is the prolonged or abnormal inability to sleep waa waqti dheer qofka inuu hurdadiisa inuu awoodi waayo inuu seexdo xaaladda noocan ahna is usually symptom waxay had iyo jeerba astaan u tahay another problem dhibaato kale sida depression oo kale niyad jabka pain xanuunka ama excessive caffeine qofka inuu qaato caffeine tira badan in waxaa loola jeedaa without some waxaa loola jeedaa sleep iyana waa abnormal condition xaalad aan caadi ahayn sidoo kale narcolepsy waa sleep disorder waa hurdada cilad ku imaanayso consistent oo ka kooban sudden and uncontrollable brief episodes of falling asleep qofka macnaha waqtiyo gaaban in hurdo uusan xakameyn karin inuu ku timaado during the day maalinkii macnaha qofka isagoo goob shaqo joogo isagoo meel fadhiyo isagoo asxaab la joogo in hurdo isla markiiba u galo isagoo aan controlkiisana ahayn narco means starboard ayaa loola jeedaa ama insensitivity macnaha qofka inuu awood u yeelan waayo inuu xakameyn waayo hurdadii oo jirkiisa ka imaanaysay insensibility inuu awood u yeelan waayo qofka inuu xakameeyo lepsy waxaa loola jeedaa seizure macnaha hurdo qalal oo kale ah qofka inuu hurdo cerebral palsy waa xanuun isagana sidoo kale is a condition waa xaalad characterized by astaan ay u tahay poor muscle control xakameynta murqaha inay liidato ama yar tahay spasticity murqihii inay isku imaadaan speech defects hadalkii cilad inay ku timaado and other neurologic deficiencies iyo cilado xagga dareen wadayaasha inay ku yimaadaan due to waxaana sabab u ah damage dhaawac inuu soo gaaro that affects of the cerebrum qaybta maskaxda kamid ah inuu dhaawac soo gaaro spasticity waxaa laga wadaa marka is a condition waa xaalad in which taasoo certain muscles murqaha qaarkood are continuously contracted in si joogta ah ay u aruurayaan oo aruuris ay u sameynayaan palsy waxaa loola jeedaa isagana waa paralyze xubintii inay dhimato oo kale amaba awoodeeda ay baaba'do of body part qayb jirka ka mid ah that is often accompanied by taas oo inta badan ay daba soconayso loss of feeling dareen la'aan and uncontrolled body movements iyo qofka inuu xakameyn waayo dhaqdhaqaaqa jirkiisa such as sida shaking jaraynta oo kale cerebral palsy occurs
xaaladda noocan waxay dhacdaa si dhaqso ay u dhacdaa in premature in ilmaha inay dhashaan iyagoo waqtigooda aan 9 bilood la gaarin or low birth weight of infants ama ilmaha ku dhalanayo culeyskooda iyadoo uu yar yahay. sidoo kale cerebral palsy is usually caused by sida caadiga ah waxaa sababayo by an injury dhaawac inuu soo gaaro dhaawacaasoo that occurs ku dhacayo during pregnancy hooyada markay uurka leedahay birth ama markay ay dhalayso or soon after birth ama si dhaqso ah markuu dhasho kadib ilmaha in dhaawacyo iyo wax inay soo gaaraan. Peripheral neuropathy sidoo kale waa disorder ama cilad of the peripheral nerves oo ku imaanayo dareen wadayaasha that carry information kuwaasoo xambaarsan warbixinada to and from the brain and spinal cord oo maskaxda geynayaan isla markaasna ka soo celinayaan. Neuro waa nerve oo dareen wadihii, pathy waa disease waa xanuunkii. This produce arrintan marka waxay keenaysaa pain xanuun, sidoo kale waxay keenaysaa loss of sensation dareenkii inuu qofka inuu ka dhumo ama dareenkiisa inuu waayo, and the inability to control muscles iyo awood la'aan qofka uu ku xakameyn kari waayo murqihiisa gaar ahaan in the arms and legs lugaha iyo gacmaha. sidoo kale waxaa ka mid ah neuropathy xanuun inuu ku imaado dareen wadayaasha. is any disease waa xanuun kasto or damage ama dhaawac to a nerve ee ku imaanaya dareen wadaha and can either be wuxuuna noqonayaa midkood mononeuropathy hal nerve in wax soo gaaro, is a damage to a singular peripheral nerve dhaawac soo gaara hal dareen wade, ama polyneuropathy inuu noqdo when multiple peripheral nerves are damaged waa marka ay dhaawacmaan unugyo badan oo unugyada dareenka ah. sidoo kale diabetes is a common cause waa waxyaabaha ugu caansan oo sababayo polyneuropathy dareen wadayaal badan oo jirka ka mid ah, along with trauma iyadoo ku imaanaysa jug ama vitamin deficiencies yaraanshaha xagga fitamiinada ku imaanayo, ama alcoholism qofka in maandooriye inuu isticmaalo. okay mental healthy xanuunada maskaxda caafimaadka oo ku carqaladeynaya waxyaabaha caafimaadka maskaxda dhibaateynaya ama carqaladeynaya waxaa ka mid ah inkastoo described as being disorders ciladaha lagu qeexo mental health caafimaadka maskaxda, the causes waxyaabaha sababa of the following conditions xaaladaha soo socdaan also include sidoo kale waxaa ka mid ah congenital abnormalities waxyaabo aan caadi ahayn oo qofka uu ku dhalanayo, physical changes isbedelada jireed, substance abuse waxyaabo si qaldan loo isticmaalo, medications daawooyinka or any combinations ama waxyaabo kasto of these factors oo la socon karo waxyaabahan hadda aan xusnay, and include waxaana ka mid ah anxiety disorder waxaa ka mid ah ciladaha walwalka ah, stresska ayaa ka mid ah, phobia cabsida noocyadeeda kala duwan ayaa ka mid ah, developmental disorders cilado oo waxaa ka mid ah oo xagga qofka koriimada ah hoos u dhac ku keenayo, dyslexia ayaa ka mid ah oo learning disability ah oo cilada dyslexia inuu qofka inuu ku yimaado. sidoo kale waxaa ka mid ah learning disability yaraanshaha xagga waxbarashada, mental retardation sidoo kale waxaa ka mid ah yaraanshaha xagga caqliga, intellectual disability qofka inuu curyaan ka noqdo ama ka noqdo maxaa dhihi lahaa naafo xagga maskaxda ama xagga caqliga. autism ayaa ka mid ah developmental delays dib u dhac ama yaraansho inuu ku yimaado koriimada, including ay ka mid tahay speech hadalka ama language ama afka uu ku hadlayo qofka. sidoo kale mood disorders waxaa ka mid ah xaaladaha maskaxeed oo qofka uu gali karo oo ay ka mid tahay depression niyad jabka. sidoo kale waxaa ka mid ah psychotic disorders xanuunada dhimirka oo schizophrenia oo waalida ay ka mid tahay. sidoo kale waxaa ka mid ah personality disorders cilado xagga shakhsiyadeed oo qofka ku imaanayo. diagnosis sidee baaritaano lagu sameyn karaa marka procedures baaritaanada loo adeegsan karo. waxaa jiraan many techniques habab badan that can diagnose lagu baari karo nervous system disorders ciladaha habdhiska dareen ku imaanayo iyo defects iyo dhaawacyadooda, waxaana ka mid ah magnetic resonance imaging oo MRI oo scan ah, sidoo kale computed tomography oo CT scan loo yaqaano, sidoo kale electroencephalography oo iyagana sidoo kale sawirada oo maskaxda loo adeegsan karo maskaxda, myelography
oo sidoo kale spinal cordka loo adeegsado lumbar puncture also known as sidoo kale spinal tap loo yaqaano in laga soo qaado dheecaano si loo ogaado cilladaha ka jiro. Treatment procedures tallaabooyinka loo maraayo xagga daaweynta marka laga hadlaayo waxaa ka mid ah hypnotic ayaa ka mid ah, depresses in la yareeyo depressionka oo kale central nervous system oo ku imaanayo unusually produce sleep isla markaasna qofka markay ka yareyso macnaha markuu yaraado niyad jabkii waxaa imaanayo hurdo ayuu helaya qofka. sidoo kale anticonvulsant waa administered waa daawo ayaa loo qaraa qofka to prevent si looga hortago qalalka iyo such as sida those associated with epilepsy sida dadka qabo oo kale qalalka iyo suuxdinta waxyaabaha la midka ah. Sedative in la siiyo daawooyin oo dejin ah oo qofka dejinayo. Depresses waxay ka yareynaysaa qofka niyad jabkii iyo walwalkii central nervous system ku dhacayay to produce calm si qofka looga helo deganaansho and administrate sidoo kale and diminished si loo yareeyo responsiveness jawaabihii uu bixinayay without producing sleep isagoo qofka aan hurdayn ayay xaaladiisa dejinaysaa. lecture halkaas ayuu noogu ogyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.